Dagaal culus oo maanta ka dhacay koonfurta gobolka Mudug ayaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada daraawiishta maamul goboleedka Galmudug waxa ay kooxda Al-shabaab kala wareegeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Mudug. Deegaanada ay maanta ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa daraawiishta Galmudug ay la wareegeen waxaa ka mid ah deegaanka Bacaadweyn, Qaycad iyo deegaano kale oo ka tirsan koonfurta gobolka Mudug. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta Galmudug ayaa saaka aroornimadii hore ku ruqaansaday deegaanadaasi iyaga oo ka faramaroojiyay Al-shabaab deegaano badan oo ka tirsan gobolka Mudug. Howlgalladan ciidamadu ay sameeyeen ayaa waxa ay deegaano badan saaka ku qabsadeen iyaga oo ciidamada daraawiishta Galmudug ay halkaasi maanta baadhitaano xoog leh ay ka sameeyeen. Wasiirka amniga maamul goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inay wadi doonaan howlgalladaasi kadib intii ay deegaanada gobolka Mudug gaar ahaan Galmudug ay ka qabsan doonaan buu yidhi Al-shabaab sida uu sheegay wasiirka amniga Galmudug Fiqi oo warbaahinta kula hadlay. Waxa ay sheegeen saraakiisha ciidamadaasi hogaaminaya inay qabsan doonaan deegaano badan iyaga oo sheegay taliyaasha ciidamada hogaaminaya ayaa u sheegay warbaahinta in ay dileen ugu yaraan 15 sida ay sheegeen oo ka tirsan Al-shabaab. Waxa ay sheegeen in ciidamada daraawiishta Galmudug iyo kuwa federaalka Soomaaliya aysan wax khasaare ka soo gaadhin howlgalkaasi. Ciidamadan oo indhaweyd dhaqdhaqaaq ka waday kadib markii ay maalmo ka hor Al-shabaab ay soo weerareen deegaano ka tirsan gobolka Mudug gaar ahaan degmada Wisil ee gobolka Mudug iyaga oo dad badan oo shacab ah halkaasi ku laayay. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ballan qaaday in uu intuu xilka hayo deegaanadaasi uu ka sifayn doono kooxda Al-shabaab sida uu sheegay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Ciidamada daraawiishta Galmudug ayaa waxa ay maalmahan wadeen howlgallo ka dhan ah Al-shabaab iyaga oo isku fidinaya deegaano badan oo ka tirsan Galmudug oo horey gacantooda uga maqnaa.